waxaa loo baahan yahay in lagu toosnaado dariiqa ilaahay. maxaa yeelay banu aadamka waxaa lagu yaqaanaa weecweecsi ayaa lagu yaqaanaa. insaanku si uma toosnaado u boodbood badan yahay, sida awgeed noloshiisa, xaasiistiisa, afkaartiisa intuba way boodbooddaa, sina uma joogsanaato. waxaa loo baahan yahay in laga adkaado shaydaanka, laga adkaado shayaaiin al-insi waljinni, laga adkaado. waxay u baahan tahay dad badan oo dadka lumiya ayaa jira, asxaab xun baa jira, munaafiqiin ayaa jira. dhibaatadu way badan tahay. sidaad ugu toosnaan lahayd waddadani way adag tahay. sida awgeed waxaa loo baahan yahay in ilaahay in badan la baryo, inaan adduunkan laga bixin. adduunkan adiga oo nicmadda ilaahay haysta, adiga oo islaamnimada haysta, inaad ka baxdid, inaad ku ducaysatid watawafanii musliman, ilaahow anigoo muslina inoole, ina dil aniga oo muslima. adduunkan waa inaad ku noolaatid islaamnimo. markaad adduunkan ka sii baxaysidna islaamnimo. taasi waxay u baahan tahay dadaal badan. sida awgeed nebi ibraahim calayhi assalaam awlaaddiisa ugu dardaarmay, wawasaa biha ibraahiimu baniihi wayacquub yaa baniya ina allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. nebi ibraahim baa awlaaddiisii ugu dardaarmayey, nebi yacquub baa awlaaddiisa ugu dardaarmayey inayna arladan ayna ka bixin, oyna aakhiro iyo caalamkii dambe ayna u guurin iyagoonan muslimiin ahayn. diinta